بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي باب مهدله ما أنت وبش اللبية تبنتهي إن جالسيي وأن سجنوا بريئة صدحية طبعا نوفمبر وأي تهي maalinta u astaysan jamaahiirta Soomaaliland ee taageertan isbeddeldoonka ay u dareerayaan goobaha doorashooyinka si ay u bixiyaan codkooga. waxaan ahay musharax madaxweyne ku-xigeen u taagan ee xisbiga wadani. waxaan mahad ballaaran u celinayaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo jamaahiirta isbeddeldoonka ee gobollada iyo degmooyinka dalka aniga oo uga mahad celinaya sidii gobonimada lahayd ee ay u muujiyeen dareenkooda, shucuurtooda iyo rabitaankooda maalmihii aynu ku jirnay ololaha doorashada. muwaadin, sida aad og tahay waxa shacabka Soomaaliland ku habsaday xukuumad dhulkii danta guud xaraashtay oo ay ku jiraan xanaanooyinka hooyooyinka iyo dhallaanka loogu talagalay. waxaad og tihiin inuu dalka ku habsaday xukuumad noloshii dalka cidhiidhi gelisay, xukuumad colaad iyo dagaallo u horseeday, xukuumad gobolladii dalka qaarkood lumisay, xukuumad awooddii qaranka ku tarki fashay, xukuumad shacabkii Soomaaliland aad u kala qaybisay, xukuumad xabsiyada ka buuxisay muwaadiniintii dalka, xukuumad haybaddii iyo sharaftii dalku lahaa dhulka la gashay. muwaadin, waxaan ognahay in noloshii idinku adkaatay, maciishadiina aad awoodi kari laadihiin. waxaan ognahay inaydaan biyo iibsan karin, inaydaan koronto haysanin, inaydaan caafimaad haysan, in carruurtiinnii waxbarashada qarashkii ku bixayay awoodi laayahay. waxaad og tihiin in baahidii xaddhaaf gashay. waxaan si gaara ula hadlayaa anigoo si guud dalka dhibaatooyinkaasoo dhan ay ka jiraan dadweynaha ku nool gobollada Awdal, Salal iyo Gabiley. waxa aad ka warqabtaan in madaxdiinnii sharafta dhaqanka qaarkood xabsiyada lagu guray, qaarna dalka xabad lagaga saaray, lagaga celiyeyna oo aysan soo geli karin oo ay dibadmeer yihiin sida ugaaskii Samaroon. waxa aad ka warqabtaan tiraba 5 jeer dhagax la dhigay eerboorka magaalada Boorama oo u buuxsamay dhagax dhigoosii. waxa aad ka warqabtaan in dekedihii Saylac iyo Lughayo aanay jirinba. waxaad ka warqabtaan in waddadii isku xidhi lahayd Lowyacaddo iyo Boorama ee bangiga Afrika bixisay in la diiday inay dhaqaaqdo. waxaad og tihiin degmooyinka gobolka Awdal iyo Salal iyo Gabiley inayna isku gudbi karin oo ay sidii Ilaahay ku abuuray yihiin oo aan waxba laga qabanin. waxaad og tihiin in muddo 3 sannadood ay xukuumaddu hortaagnayd wax kasta oo waddan gobolka laga qaban lahaa. 7 sano joogtayna ha ugu sii daraad 3 sannadood dambeeyay. waxay ka mid ah dhibaatooyinka ay waddo xukuumadda gobollada ku hayso miisaaniyaddii baarlamaanku baaskareeyeen sanadkii hore ee loogu talagalay sanadkan 24ka inay diiday xukuumaddu oo ay celisay. maanta waa 12 Noofambar sanadkii 2024. waxa saacado koobani ka dhiman yihiin wakhtigii aad u dareeri lahaydeen goobaha codbixinta si aad u doorataan madaxdii idin hoggaamin lahayd 5 sano soo socota. waxa maanta idiin fursad ah in aad aragtaan wakhtiga aad hesheen iyo fursadda aad hesheen si aad codkiina u bixisaan. waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay in shacabka gobollada Awdal, Salal iyo Gabiley ay hormood ka noqdaan in dalka uu ka dhaco isbeddel la mahadiyo. xisbiga rajada shacabku waxa uu diyaar u yahay in baahiyahaas tirada badan ay wax ka qabto awooddiisa intay tahay isaga oo dalka iyo dadkaba u turaya. waxa aan kalsooni ku qabnaa in tabashada muddada dheer ay reer Awdal qabaan iyo Gabiley
iyo selal iyo waddanka kaleba intiisa kaleba ay wax laga qaban doona haddii alla yidhaah shacabka Somaliland waxaan u ballan qaadaynaa inaanaan noqon doonin kuwa idin kala abtiriya kuwa aan horumarkiina ka shaqaynin kuwa idinka shaqaysta inaanaan noqonin ee aanu noqonno kuwa idin shaqeeya muwaadin maanta waxaad haysataa fursad weyn fursad aad rajada dalka mar kale ku soo celin lahayd fursaddii aad noloshaada iyo mustaqbalkaaga ugu hiilin lahayd waxa aad haysataa fursaddii aad ku go'aamin lahayd jihada waddankaagu u dhaqaaqayo waxa aad haysataa fursad aanad ogayn mar kale inay ku soo maraso muwaadin maalinta berri waa maalinkii aad muujin lahayd inaad dalkaaga jeceshahay waa maalintii aad muujin lahayd in dhabbaha dalkaagu ku socdo aad adigu go'aankeega yeelato muwaadin muuji in aad karaamo leedahay oo codkaaga beddeli doonto cid kasta oo aad u aragto inaynan danta dalka iyo dadka ka shaqaynaynin muwaadin codkaaga ku hubso xisbiga rajada shacabka iyo musharaxiintiisa si ay mar kale dib ugu soo noqoto rajada ummadda Somaliland u codee isbahaysiga isbedeldoonka muwaadin u codee ha calaacalin berri toole haddii aad ka habsaanto oo aad codayn weydo Somaliland ha noolaato xisbiga waddani isbedeldoonkuba ha guulaystaan Somaliland guul iyo gobonnimo gobollada gaar ahaan gobolka Awdal waxaan leeyahay magaalada Boorama iyo gobollada Selal iyo Gabileyba war codkiina muujiya berri toole si aydaan u odhanin codkayagii waanu eednay si aydaan u odhanin codkiina muujiya ilaahay waxaan ka baryanaa inay doorashadu nabadgelyo inoogu dhacdo ilaahay waxaan ka baryanaa in dawladda iyo xukuumadda waqtigeegii dhammaaday au waafajiyo xaqa oo ay si nabadgelyo ah u qabato doorasho xalaala iyo xor ah ay qabato Soomaaliland ha guulaysato salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu